السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah aan ugu talagalnay faalada ciyaarihii la ciyaaray iyo waxyaabihii marka laga soo calaamadeeyay ayaa barnaamijkan ugu magac darnay faalo waana barnaamij marka aan ku falanqeyn doono ciyaaraha la ciyaaray waxyaabihii marka laga soo calaamadeeyay ayaan marka uga hadli doonaa aan soo qaadan doonaa kulamadii shalayto qaaradda Yurub iyo kooxaha waxyaabaha laga soo calaamadeeyay ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena faalo nadiga Arsenal nadiga Manchester United ayaa waxyaabaha laga soo calaamadeeyay kulankii Falay Maratis ka dhacay waxaa kamid ah McTominay ayaa waxa uu dhaawacmay iyadoo labada dhinac midkoodna uusan jebin ama gool markaa uu dhalin dhanka kale Martin Odegaard wuxuu ka yimid kursiga keedka si uu u safto kulankiisa ugu horeeyay qaybtii labaad ee ciyaarta Manchester City ayaa hal iyo eber ugu badisay naadiga Sheffield United Pep Guardiola ayaa markaa sii joogaya kalimaha hore horyaalka maadaama Gabriel Jesus oo shaqada markaa uu qabtay shabaqana soo taabtay goolka qura ee kaga badiyay naadiga lagu magacaabo Sheffield United dhanka kale naadiga Manchester City ayaa garaacday Sheffield United hal iyo eber si ay booska ugu sareeya Premier League u sii iibsato 4 dhibcood kaga sareysa naadiga lagu magacaabo Manchester United dhanka Talyaaniga haddii aan fiirino naadiga Sampdoria ayaa looga badiyay 2 eber naadiga Juventus ayaana markaa ku badisay Aaron Ramsey ayaa goolal ka dhaliyay naadiga Juventus Real Madrid haddii Spain aan fiirino ayaa 2-1 lagaga badiyay naadiga Levante ninka lagu magacaabo Morales ayaa markaa iyo Martin ayaa markaa kala dhaliyay waxayna markaa joojiyeen furitaanka Asensio goolkii ugu horeeyay uu ka dhaliyay ay markaa xaqiijiyeen in looga badiyo naadiga lagu magacaabo Real Madrid xilli ciyaareedkii xumay naadiga Real Madrid ayaa soo gaaray dhaawac kale maadaama ay 2-1 ku waraaceen naadiga Levante ay kaga badisay haddii aan fiirino Bundesliga wadanka Jarmalka waxyaabihii laga soo calaamaday ciyaarihii ka dhacay Bayern Munich ayaa 4-1 kaga badisay naadiga Hoffenheim horyaalnimada Jarmalka ayayna markaa hogaaminaysaa waxayna ku sareysaa dhibcaha marka ay ku wadaa 10 dhibcood Bayern Munich ayaa adkaatay markaa gacantoodana markaa ku haysa Bundesliga wadanka Jarmalka kadib markii ay markaa u fududaatay inay ka badiyaan naadiga Hoffenheim dhanka kale Serie-da haddii aan ku laabano Inter Milan waxyaabaha laga soo calaamaday naadiga Inter Milan ayaa 4-eber kaga badisay naadiga lagu magacaabo Brentford ninka lagu magacaabo Lukaku iyo xidiga lagu magacaabo Lautaro Martinez ayaa markaa u dhaliyay goolasha oo markaa noqday xidiga ugu muhiimsan naadiga Inter Milan ayaa sameysay shaqo gaaban oo markaa kaga badisay naadiga Brentford iyadoo 4-eber ku qaraacday San Siro oo ay ku jiraan halyeeyada Romelu Lukaku iyo Lautaro Martinez oo soo gabagabeeyay hadafkii abaarta ahaa in naadiga Inter Milan dhaga gool dhalinta ayaa leeyahay inay xaqiijiyaan hogaan kara markaa ay ku sii saqaan ayaa leeyahay horyaalka wadanka Ingiriiska naadiga Everton Newcastle ayaa markaa ku badisay naadiga Newcastle ayaa ku badisay 2-eber Callum Wilson ayaa markaa labaaley markaa ka dhaliyay wuxuuna fududeeyay cadaadiska saarnaa tababaraha lagu magacaabo Stephen Brugge goolka labaad ee Callum Wilson ayaa Newcastle siiyay guushii ugu horeysay ee 9 kulan ee Premier League si ay u fududeeyaan cadaadiska saaran Stephen Brugge maadaama ay 2-eber markaa ku garaaceen kooxda Everton Gothenburg iyadoo joogta dhanka kale haddii aan fiirino naadiga Crystal Palace ayaa 1-eber naadiga Wolves ku qaraacday ayna u yeelatay inay ku guuleysto cadaadiska saaran markaa ay cadaadis sii saarto ninka lagu magacaabo Nuno Espirito oo bilihii la soo dhaafay u tartamay macalinka ugu wanaagsan Premier League wadanka Ingiriiska Crystal Palace ayaa guul darro kale oo dhaawac ah ka soo gaartay Wolves sadidii iyadoo ninka markaa dhameysatay ayaa leeyahay goolal cajiiba ka dhalisay naadiga lagu magacaabo Salzburg markaa ku ciyaarta West Brom Albion ayaa 2-2 la gashay Fulham dhibcaha ay kala qaybsadeen West Brom Albion ayaa tagtay ayaa leeyahay kulan cajiiba la qaadatay naadiga lagu magacaabo Fulham markii ay shabaqa soo taabteen kadib markii tababar 2-2 ay markaa la galeen kooxda markaa Fulham Erling Haaland Borussia Dortmund ayaa cunay gool rigora markiisii ugu horeysay gol gadaal ay ka soo laabteen 3-1 markaa ay kaga badiyeen naadiga Augsburg Gabriel Jesus weligiis ayaa leeyahay gool ay ku badisay naadiga Manchester City Premier League ayuu markaa dhaliyay 35 daqiiqo ayaa markaa leeyahay
Manchester City ayaa 4 dhibcood ka sareysa Premier League nadiga Manchester United. guushii Manchester City ay ka gaartay Sheffield United waxay ahayd guushii Pep Guardiola ee 500aad markii uu tababaro u noqday nadiga lagu magacaabo Manchester City. waxayna sidaan oo kale markaas sameeyeen 1997 ilaa 1979 ayaa leeyahay. Bayern Munich ayaa 124 kulan markaa badisay ayaa leeyahay kulamadii ugu dambeeyay. Manchester United oo markaa la sheegay inay Premier League xilli ciyaareedkan kooxaha waaweyn ay ka qaadan dhibco muhiim ah ayaa markaa la leeyahay. Man United kulan waxay la ciyaartay kooxaha waaweyn ugu horeeyay Tottenham Hotspur 6-1 ayay la gashay. Man United iyo Chelsea eber ayay markaa wada galeen. Manchester United iyo Arsenal eber 1 adiga Arsenal ayaa ku soo badisay. Man United iyo Manchester City eber ayay wada galeen. Liverpool iyo nadiga Manchester United eber ayay wada galeen. Arsenal iyo Manchester United kulankii xalay ugu dambeeyay eber markaa ayay wada galeen. Manchester United ayaa haatan markaa laga badin. Manchester City ayaa Manchester United ayaa markaa haatan laga badin ayaa leeyahay 18 kulan Premier League oo markaa marti ay yihiin. ana sidaasi haysata ayaa leeyahay nadiga lagu magacaabo Manchester United. Lautaro Martinez waa ciyaaryahanka ayaa leeyahay ugu da'da yar ee dhaliyay 10 gool oo Serie A xilli ciyaareedkan. Romelu Lukaku ayaa dhaliyay 150 gool wuxuuna markaa uu saftay ayaa leeyahay 150 gool ayuu markaa dhaliyay wuxuuna saftay 307 kulan oo uu saftay 5 horyaal ee waaweyn Yurub isagoo markaa ka talaabay horumarkaasi 27 sano iyo 262 maalmood ayaa leeyahay. waxyaabahaas ayaa markaa laga soo calaamadiyay kulamadii xarayto la ciyaaray. ma jiro ciyaaryahan ka caawiyay goolal badan taariikhda Borussia Dortmund marka loo eego Marcus Rose. Manchester City ayaa guuleysatay 12 kulan ee ugu dambeysay tartamada oo dhan waana guushii ugu dheereed ee taariikhda ayaa la leeyahay. Manchester City ayaa guuleysatay dhammaan 9 kulan ee tartamada bishii Janaayo 2021 waxaana guulaha ugu badan ee kooxaha gaarta 4 heer ee ugu sareysa kubadda cagta Ingiriiska hal bil tan iyo markii la aasaasay kubadda cagta 1988 ayaa leeyahay ilaa 2000 kadib natiijadii ka soo baxday leeyahay Salzburg iyo naadi oo markaa lagu magacaabo garoonka lagu magacaabo Etihad Stadium waana haatan markaa si sax ah looga badiyay ayaa leeyahay taariikhda Premier League. Chelsea 131 kulan, United 130, Arsenal 114, Everton 105 kulan, Tottenham 102 kulan ayay guuleysteen ayaa leeyahay. gooldhalinta ugu badan ee dhibcaha iyo garoomada markaa loogu badiyo ayaa leeyahay intii la aasaasay horyaalka waddanka Ingiriiska 1988. guud ahaan barnaamijkeennii faalada markaa kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub kulamadii ciyaareen intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa.